السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ماشان تاجلنا هاي رجع تاجل كان وأخي داود وجنال كلها وما تأسف السلام هركان كلنا هاي نكاس والي الحسن حاجة تاجلنا هاي وش كنا أحمد مال سود بروان جعلت رجع أحمد ودرين كان ساكت كون أنا وحاول أخير يصير عليه حسن والله درين كيف صاحب أنا أبيض ما نقول في وضعي سنة هاي وكحوم هاي أنا كسر ريو وكنت كتير مقارن على هاي تذكير ما كنت يروح بديجين وحمر وبتش على يعني بس يشوفوا لكن بقدر في وقتها يظروفه رجع ظروفها كلك حياة لو رجع رسالة مركا إن شاء الله فرحت بيرنتي عن الحين أنا بس يشوفوا أنا قلت في الوقت رئيسنا وحب الله كرم ما يساعد أي حسن طيب لا ما معنا فرحات واحد سيد الله فيري معاه مع الليدر كانوا قدامين ونقول هاي ما جي علينا نقطة وقت رحنا على قاعدني مجال كوني جبني عندنا واحد سيد هذا وقتي وحال وقتي أكو عمية عندنا معاه حاجات في الجيش عندي وجهين هاي علينا السلام هذا الكتاب عوا والمنو يا تعب كان وادما ونقول هل ميدو بني دينو جاي أنا تيم تكيد واحد لا بيشرو مالك استولك اللي تشوفه أول شيء نواصل أنا يسا هرمركين نواصل أنا يا واسكو حنا هنا إن شاء الله ما يدي كم مدرين قلوبتنا بنورة إن شاء الله إن شاء الله هذا نواسيب بحنا حسيا هنا درون كأصل صعب saaxiibayaal hadda waxaan u dhaqaaqnay inaanu raacno gaadiidkii noo diyaarsanaa si aanu markaa u gaadhno goobtii aynu u soconay oo ah inaynu gaadhno madaarkii ama airportkii si aan markaa halkaa safarkeenii uga sii anba qaadno maasha allah waxay ahayd maalin aada u qiimo badan waxaana ila socday runtii rag aada u qiimo badan oo qalbigayga ku weyn agtaydana aada ugu culus baa runtii ila socday hadda waxaanu sii dhex maraynaa magaaladii muqdisho oo aan sii macasalaameyn doono oo aan runtii usoo xiisi doono in fara badan wanaageedii maasha allah bulshadii ku noolayd ee qiimaha iyo qaayaha iyo qadarinta lahayd runtii muddadii aan joogay sida diiran igu soo dhaweysay runtii waa magaalo runtii aan in badan xusi doono in badan aan xasuusan doono xaqiiqdii oo aanan marnaba ka xiisa goyn doonin marnaba aanan ilaawi doonin idam alle waxaynu hadda geli doonaa hadda waynu sii tukaamaysan doonaa waxaynu soo galnay xaruntii xalwadda inagoo markaa ka qaadi doono xalwadii aynu markaa u geynaynay dhammaan asxaabteeni qaaliga ahayd faamiliyadeenii iyo weliba qoysaskeenii iyo weliba dadkii reer Hargeysa ee aanu markaa wada shaqaynta lahayn maadaama aan ahayn nin safar markaa gelaya oo inaan sii qaada macmacaankii iyo ma garanaysaa xalawaadkii maasha allah goobtan baynu ka adeegan doonaa oo aynu kasii qaadi doonaa xalwad diiran oo markaa ku haboon in hadiyad ahaan loo bixiyo inagoo markaa u geyn doono dhammaan asxaabteenii qoysaskeenii intii aynu ka gaadhsiino iyo weliba qaraabadaydii gaarka ahayd xaaskayga carruurtaydii maasha allah xalwad aada u diiran oo aada u heer sarreysa oo xalwadihii muqdisho lagu xusi jiray ah ayaynu maasha allah maanta aynu sii qaadi doonaa aadna waan ugu faraxsanahay runtii magaalada muqdisho waa magaalo aada u qurux badan qalbiyadiinana ku jiri doonta qalbigaygana runtii ku jiri doonta in fara badan sababtoo ah in fara badan baan idila soo wadaagay muuqaalo qurqurux badan oo ku saabsan magaalada hadda oo aynu kasii baxaynana waxaynu maraynaa bartamihii jidkii wadnaha ama loo yaqaanay kilometer 4 amaba loo yaqaanay wadada dabka ayaynu hadda maraynaa oo aynu soconnaa waxaan runtii idila wadaagi doonaa kolba meesha aynu marayno ilaa inta uu safarkeenu ka dhammaanayo ee aynu ka gaadhayno magaaladii Hargeysa iyo weliba gurigeenii insha allah nala socda oo nala daawada insha allah السلام عليكم أصحابي مرحلة صفر كيبا موليكو بجتنا مقالة حمر بان تحمل حيدا علي حمري حريرها نعم مالان هذا أمري جريها ما هذا فرسين جريها حيدا إلا عيوكي هيك صاير ما شاء الله وحلي هاي حمري اسموينو فرحات بيتها هنا وقت دار بلقى في أصحابي والبا حسن قرر حسن محل أصحابتين والله أصحابته سلام عليكم marka la dhaco safar salaama ragga markay waqtooda qaataan iskaamaan inay kala tagaan ma ficil laakiin waqtiga kala geeyay Soomaa insha Allah waxaan rajaynayaa inaan wada kulmi doono reer Hargeysa maxaad u sheegaysaa reer Hargeysa waxa leeyahay halkii Axmed al soo dhaweeyay in qalbi wanaagsan waaye waxaan rabnaa mar dhow inaan soo dejin aan kusiniyo Hargeysa soo wareejin marka waxaad leedahay fasaxa amar rasiid أحمد ماشي مخربك أو كتكنيس maalin koobaad shaka qabto waa wadadii aan ka qabtay Makka al-Mukarrama ma sha Allah xamar runtii waxay u koraysaa si cajiiba ayay magaaladu u dhisantay oo runtii aaninama caadi ahayn 10kii sano ugu dambeeyay ama aynu dhahno 20kii sano ugu dambeeyay magaaladu waxay mar ka dambaysa
ay kasoo kabsanaysay dhibaatooyinkii soo gaadhay xilligii burburka. waxaad u jeedaan magaaladan wadadan hadda aynu maraynaa inay si fiican u dhisantay oo weliba qurux badan. waxaynu halkaa ka arkaynaa markaa waa taaladii iyo weliba iskoyskii kilometer 4 oo aynu runtii marayno. waxaad ka arki karaysaan ama aad ka dheehan karaysaan dhismaha qurquruxda badan leh ee weliba la naqshadeeyey ee ku yaala hareeraha wadada. sidoo kale qaabka wadada loo agaasimay ama loo design gareeyey oo heer sare ah, maasha allah. waxaanu hadda kusii dhownahay oo aynu in yar u jirnaa inaynu gaadhno waa halkii aynu ka dhoofi lahayn markaa airportkii aadan cabdullaahi cismaan. dareenkii wallahi ma dareen farxadeed lama heli karo walaalo sidan oo kale ah mar walba igu qaali wadahayga taagnaa aad baan ugu faraxsanahay waa idin mahad celinayaa saaxiibayaal. waxaan aad u jecelahay mar kastoo aragtaan linkiyada iyo bayjajka ragga odayaasha ha lagu boobo falowda iyo like-ta iyo sheerta iyo garanaysa howlahaas oo dhan qalbigayga iga yaalaan. kumanaan qof oo kalena igu wanaagsan yihiin sababtoo waa rag intii aan imid walaa maanta ma dareemin maalin keliya xidlo markaa dareenka inay karaysaan maadaama iyaga kasii baxay oo kasii tegayo aad baan u qiyaasaya in biyadana jiri doonaan oo ay wada joogi doono oo ay iska warhayn doono insha allah. marka garoonka waxaan usii gelaynaa weli waa wada soconaa aad baan u faraxsanahay. meeshan waa gabagabadii meesha ugu dambeysay oo Axmed waa ku kala hari lahayd dadka muhiimka inuu raaci rabaa waxaan leenahay safar salaam Axmed waa leenahay Axmed waa marka waan ilmeeyey runtii waayo waxaan kasii tegayaa oo aan macasalaameynaya rag igu qaaliya oo aada u qiimo badan oo aan ogahay idinka laftiinu inaad ka warhaysaan sidaan iskugu dheernahay anigana aan runtii dareemayo. hadda waxaan gudaha u galay oo aan soo macasalaamaya asxaabtaydii iyo Muqdisho aadan cabdullaahi cismaan international airport baynu hadda joognaa oo aynu ka duuli doonaa insha allah. hadda waxaanu toos soo galay diyaaradda gudaheegii. diyaaradii wayna la soo kacday. waxaanu runtii gelaynaa safar aada u qiimo badan oo farxadiisa wataa oo reyntiisa wataa oo aanu doonayna runtii inaan joog sare ka duulo dhulka si aan markaa idin daawadsiino quruxda dhulka iyo weliba markaa daruuraha dusha ka marto sida ay u ekaanayso. waxaynu u wada jeednaa ama aad daawan karaysaan quruxda iyo runtii marka dusha laga sawiro dhulka iyo daruuraha isdul hoganaya quruxda iyo qiimaha. waxaynu toos u nimid Cigaal International Airport Hargeysa. maasha allah waxaa jooga diyaarado fara badan Ethiopian Airline. waxaa runtii igu soo dhaweeyey oo igu sugayay madaarka saaxiibkay qaali cabdiraxmaan cabdirashiid qaali cabdiraxmaan xarago iyo weliba walaalkay xasan oo runtii u diyaarsanaa inay isoo dhaweeyaan oo ay runtii ugu qaabilaan madaarka iguna sii sugayay. waxaan leeyahay waad mahadsantihiin. abaalkiina waxaan ku guda garan maayo laakiin asxaabtayda idiin mahadnaqaysa iyo aniguba waxaan idin leenahay thank you very much. aad baad mahadsantihiin. aad baan runtii ugu faraxsanahay. waxaan magaalada YouTube wax laga soo dhow channel kana waa ku dhowahay aragman official ah lagu yaaco ha lagu boobo like ta share subscribe ta asxaabay aad baan runtii waa ka soo dhex muuqday maanta laga bilaabo saas ay noo balan insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبيال سلام كلي اللابة. hadda waxaynu soo gaadhnay magaaladii Hargeysa qurux wanaag baynu soo gaadhnay. waa ka soo degnay airportkii alxamdulillaah ilaahay waana nabad keenay safar salaama. waad noo aqbalay ducadii aad noo soo ducayseen dhammaantiin maadaama aynu safar soo ahayn. asxaabtii iga soo sagootiyey magaalada Muqdisho aad baan u salaamay. waxaan leeyahay kaliya laab waanu jecelahay baan leenahay. asxaab ay igu soo dhaweysay magaalada Hargeysa uu ka mid yahay Master Xasan أحمد داود waxaan horta markii baad mar labaad bilahay ma hadda iskale isagoo caafimaad qabo inuu nabad keenay waa ilaa saaka ilaa xayunu ducaynayno ilaahay Axmed nabad ka maal lahayn marba waxaan leenahay meesha channelka inoo soo kala kiciya like ta share ta comment-ga waxa inoo soo kala kiciya mar walba waxaan Axmed Daawud noo soo dhawow inamadii soo sabootiyay waxaan leenahay aad iyo aad baad mahadsantihiin sidaad soo sabootiyay iska badan baan insha Allah idin soo sabootona idinkana kan dood timaadaan marka mar walba waxaan leeyahay Axmed Daawud magaaladii mahadsanid waan dhawahay halkan ayaa iga xiga saaxiibka Xarago oo gaari isku kala bixinaya
ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آد بان دي سلام يا دمان أصحابتك كحران ليدر كين أحمد داود شانل ما شاء الله وحويان وهو قام يقاري أو أن إن بدن سجين أنا أركم مرقون ما ركتي ما داموا مدبرا كم برنامج قال له هرجيسة waxa ku tabay asxaabtaadii familkaagii leaderskii iyo magaaladii Hargeysa ma sha Allah si balaadho ayaan maaragtay markaas ugu soo dhaweynaynaa sidoo Ahmed maanta tiwgaagu waa sidee saaxiib dareenkayga lama soo koobi karo farxad aad u weyn baan runtii dareemayaa gurigaygii baan hadda joogaa waxaan u geli doonaa xaaskaygii iyo cunugayga aan jeclaa iyo waliba familkaygii kale aan jeclaa aad bad mahadsantiin asxaabay la socda insha Allah dareenkayga lama soo koobi karo insha Allah namash let's go marsh tiyo aye wanaagsan caafimaadka maasha asxaabta qaaliga kulli gurigii baan soo galnay saaxiibayaal halkan dareen gooniya oo xasaasiya ay runtii igu leedahay waayo waxaan la kulmayaa xaaskaygii aan jeclaa ilmahayga aan jeclaa qoyskaygii maasha Allah aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan kusoo laabtay aad bay iyaguna ugu faraxsan yihiin waa runtii ku dul qiirooday waa ku dul ooyay familkayga sababtoo ah 4 bilood ku dhawaad baan ka maqnaa laakiin maanta ilaahay qadaray inaan soo noqdo aad baan u faraxsanahay aad baad mahadsantihiin idinkuna sida qiimaha iyo qaayaha leh runtii aad noola socoteen waa soo guriga noqday hadda gurigayga baan joogaa dareenkayga lama soo koobi karo kolley video ma sii wadi karo waayo qoyskaygii baan u imid aad baan idiin jecelahay fi amaanillah insha Allah waxaa kaloo runtii xaflad lama filaana oo aan warsi hayn ii qabanqaabiyo ii diyaariyay iguna soo dhaweeyay tiimkayga qaaliga ah maasha Allah aadna ii soo dhaweeyay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waan idinka qabaa jasaakumullahu khayran xaflad runtii aad u heer sareeya oo aad u heer sareysa runtii oo aad ula dhacay bay ii soo qabanqaabiyeen waxaa la yidhi haddii aad ummadaada wax gashato adigana wax wanaagsan baa lagugu soo celin aad baan idinka mahad celinayaa dadkii qabanqaabada ka qayb galay tiimkii ka qayb galay ee soo diyaariyey ee runtii soo agaasimay saas oo dhan iga farxiyey waxaan leeyahay idinkana aad baad u mahadsantihiin waan idiin mahad celinayaa mar walba door muhiim aad iigu jirtaan insha Allah xafladaasna ila daawada insha Allah iyadoo dhammaystiran badan joogi doono dhammaanteen baa intaas oo dheer waxa diyaar u yihiin hambaliyada farxadaada inaad nagu soo noqoto mar labaad xarumihii iyo training nagu soo noqoto insha Allah meelo sare bilaa insha Allah welcome waxa soo aad baad mahadsantihiin dhammaantiin sida qiimaha iyo qaayaha ledii soo dhaweyseen waan idinka hayaa waan idinka qabaa asxaabtayda qaaliga aad baad mahadsantihiin jasaakumullahu khayran mug iyo miisaan labadii soo dhaweyseen karaamo leh Allah idin sharfo Allah idin karaameeyo aad baan ugu mahad celinayaa dhammaan qabanqaabiyaasha ayaan ay ugu horeyso uu ku xigo Cabdikariin iyo tiimamka kale oo dhan leader xarago dhammaantiin waad mahadsantihiin jasaakumullahu khayran waxaan idin leeyahay shukran Allah ikiin daayo anna idinkaan idinka tirsanahay idinkaan idiin maqnaa idinkaan idiin jooga hadda waxaan insha Allah rajeynayaa dadka asxaabteena Soomaaliyeed ee ku xidhan channelkeena Axmed Daawud channel inay subscribe-ta like-ta iyo share-ta runtii ay videogan